بسم الله كسر جناب ساهر محمد ما أنت عندنا عشر كنا أفراد ماكرو إيكونوميك مدونا نقدر قلنا عواقب مشغولة لكن ساعد وحن جريدنا نادس جوبة أسبوعي بمرة أنسى يقولون دونه ما أنت وحن قابل دونا عشر خينا وحكوسة بسنة هاي GDP أما gross domestic product وحياة indicator كوجومي بسن macro economic مكلاها الله aad loo isticmaalo aadna ugu caansan marka la economic marka la soo qaado in GDP waxay ka mid tahay waxyaabaha aadka ugu xiriira arrimaha oo dhaqaalaha oo mar walba ay tahay key important marka waxaan rabnaa inaan ogaano GDP maxaa la dhahaa definition sarana ka bixino iyo average ku kala baxo dadna waxaan rabnaa nooc u kala baxo iyo calculation ku imaado inaan ka dhigno casharka dambe laakiin hadda kaliya waxaan rabnaa inaan sameeyno introduction iyo definitionska iyo average ku kala baxo horta GDP marka la lahayo waxaa GDP wuxuu ka imaaday waa gross domestic product taas laga soo gaabiyay waana wadarta wax soo saarka dalka wax soo saarka wax inta marka la isku wada geeyo wixii ka soo baxa oo dalka ayaa la dhahaa GDP marka definition badan ayuu leeyahay definitionada aan soo qaadan waxa kamid ah saddexdan definition kood wuxuu ka hadlayaa mid waa inta wuxuu dhahaa total value of goods and services that are produced in the economy during a economic period definition kan kood wuxuu ka hadlayaa waxa ku dhahay waa qiimaha oo isku darka qiimaha ee alaabaha iyo adeegyada kaasoo la soo saaro guud ahaan xilligaas oo ah ugu yaraan 1 year sanadkii marka la isku wada geeyo ayaa la dhahaa GDP definition labaadna wuxuu leeyahay waa domestic final uses and net export macnaha waa isticmaalka guud ee dalka iyo net export waa import plus export means import macnaha waxa la diraayo oo laga jiro waxyaalaha la soo dhoofsanayo definition ka saddexaad wuxuu sheegayaa in isku darka dakhliga ama income-ka dadka ka soo xarooda dadka dalka guud ahaan dhaqaalaha marka saddexdan definition waa mid walba wuxuu ka hadlaa GDP-ga laakiin saas tahay saddexdaba waxay la xiriiraan saddexda approach uu leeyahay mataqaana GDP-ga salahan oo kale marka definition-ka aad bixinayso macnaha mid kale ma qaldana laakiin se waxay ku xiran tahay halka ka eegayso GDP-ga hadaad ka eegayso hal dhanka production-ka waxaa ku qaadanayo inaad qaadato magaciisa kan koowaad oo ah total value good service ka isku daray oo value-gooda kaasoo produce wax soo saarka produce soo ma jeed waa soo saarka wax soo saarka oo xoog saaraya mid approach labaad waa approach kood waxa dhahnay production approach lahaa wuxuuna badanaa xoog saaraa production ka saaraa xoog wuxuu saaraa production ka saaraa maxaa yeelay wuxuu fiirinaa kaliya wadanka wax soo saarkiisa ayuu xoog saaraya marka laga hadlo expenditure approach wuxuu fiirinaa isticmaalka uu fiirinaa oo ah final uses ayuu fiirinaa wax soo saarka final uses maxaa waaye waa finalka oo isticmaalaan householdiga balaskan governmentiga kan dowladda iyo kan balas ambishka waxyaalaha oo hay'adaha oo non profitka ah marka finaladaas marka la isku daro balas waxa waaye net export oo ah export minus import wuxuu fiirinaa waxyaalaha la consume gareey waxa dirtay consume-kiisa ku jira wadanka laga consume gareena waxyaalahan adiga oo lagu keeno wadanka marka la isku daro wixii consumption-kaas waxa loo yaqaan expenditure wixii qarashaad ayuu xisaabinayaa marka GDP-ga approach-ka marka la fiiriyo approach-ka income-ka wuxuu xisaabinayaa income-ka dadka soo saarka dadka oo domestic income-kooda oo la isku geeyo ayaa waxa
GDP ga marka GDP ga hadba macnaha waxay ku xiran tahay approach ka isticmaalayso approach ka arabto inaad aad tixgeliso definition kaas ayaa qaadanaysaa macnaha haddaa dhahdo midka koowaad midka labaad xoogaa somehow way kala fog yihiin laakiinse waxay ku xiran tahay adiga approach ka rabto inaad isticmaasho marka saddexdan approach ayaa jira oo GDP ah next lesson waxaan qaadan doonaa GDP inta uu kala baxo iyo jump sum calculation oo cadeynaya what is real iyo nominal GDP marka insha Allah nala socdo wixii su'aalo ah comment igu soo qor ama emailkayga gmail ka ah harjana inaa fahamteen bila tawfiiq.